munaasabadan lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa soo qaban qaabiyay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sacaada. ujeedada munaasabada loo qabtay waxay ahayd soo dhaweyn loo sameynayay ardayda cusub ee iskuulka ku soo biirtay ee ka qayb qaadanaya sanad dugsiyeedka 2018-2019. Dr. Xuseen Macow Xaaji waxa uu ka mid ahaa aqoon-yahanadii ka qayb galay munaasabada. Ugu horreyn goobta ayuu ka hadlay isaga iyo mid ka mid ah waalidiinta oo hadal kooban jeediyana waxay yiraahdeen annaga waxaan u baahannahay dad tayo leh. tiro ma loo baahnaa, tiro badan waa haysanaa, laakiin tayaan u baahannahay. tayadan waxaa lagu gaari karaa ayadoo wax la barto, in iskuulaadka la camiro, jaamacadaha la tago. marka waxaan rajaynaynaa dadkii abaawalay maanta Sacaada oo ka bilaabay primary school oo kii ugu hooseeyay inay berri insha Allah annagana inaan garab istaagno aan ugu dhigno inay jaamacad gaaraan. waxaan idinku hambalyeynaa dadaalka aad dadaasheen oo ardayda ilmaha aan waalidka u nahay aad wax barteen dadaalkooda aad xoog saaraysaan insha Allah. waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin maamulka dugsiga iyo macallimiintaba iyo intii ka qayb gashay xafladan qaban qaabadeeda. ugu dambeyn Cabdullaahi Awees Sheekh Maki maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sacaada ayaa ka warbixiyay waxa sanad dugsiyeedka cusub ee 2018-2019 iskuulka uu diyaariyay ardayda ka qayb qaadanaysa sanad dugsiyeedkaasi. Sacaada Primary and Secondary School sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyay waxyaabihii ugu weynaa ay ku guuleysteen waxaa ka mid ahaa in la taabageliyay laboratory oo iskuulka lahaa ay kuna wax baranayeen ardaydii dugsiga sare kuna practice-gareynayeen waxbarashadii laabka ayadoo practice ah. waxyaabaha iskuulku uu ku guuleystay 2018 waxaa ka mid ahaa barnaamijyadii oo practice-da in la baro ilmaha technical. alxamdulillah ayadana wax badan aan ka qabanay insha Allah waana rajaynaynaa waxyaabo badan inaan ku soo kordhino. iskuulku waxyaabaha uu qabtay sanad dugsiyeedkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa koorsooyinkii oo waxbarashada nidaamiga ah wax ka baxsan oo iskuulka qabtay. koorsooyinkaasna wax badan laga faa'iideystay, ardaydana aad iyo aad u soo dhaweeyeen. gabagabada munaasabada shahaadooyin ayaa la guddoonsiiyey arday. sidoo kale waxaa abaalmarino kale loo gacan geliyey arday ku guulaysatay tartamadii uu iskuulka qabtay sanad dugsiyeedkii dhammaaday ee 2017-2018. waxyaabahan ku soo bandhignay waxaa ka mid ahaa waxqabadkii 2017-2018 oo iskuulka qabtay. waxaa ka mid ahaa tartamo oo isugu jireen tartanka Quraanka Kariimka iyo tartan aqooneed kuwaasoo maanta aan ku awaalmarinay xafladda dhexdeeda. sidoo kale iskuulka wuxuu kala soo bandhigay ardayda kaalimaha galay, kaalinta koowaad, kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad. ayagana maasha Allah waxaa lagu awaalmariyay xafladda dhexdeeda lagu awaalmariyay. waxayna gaarayeen ardaydaasna waxay gaarayeen ilaa 60 arday. waxaan rajaynaynaa in insha Allah awaalmarinta aan sanadkan siinay inaan joogteeno sanadaha soo socdana aan siin doono. محمد شوريان نور، Universal TV، مقدشو.